reernimadu aniga diin bay tahay runtii waana faral waana aayad reernimadaydaana ku adag dalilaa dibad waxaanu ka xignaa dil waxayna suura gali in halkaa xeer lagu qabtaa oo loo sacabtuma qofka u dambeeyay gadabuursi maalinta u dhinto haddii 500,000 ee gobolka Awdal yaala laga doorbido 9 oday oo gando Itoobiya ka yimiday waxaan la mahadin ayaa ka dhalanaya waxaad umada u sheegtay oo fahansiisaa dhalinyaro odayadoodii dhaqanka baalmarsan wahalkii halka isku haleynayaan ma wasiiradii maalmihii dhaweeyta ay markaa qadada iyo baastada ay kula kulmayeenba sidii November 10keega ballantu ay u suura gali weyday ayayna u suura galay taa waa inaa ogaataan adalyaanka waxaan leeyahay waatiyaadi beesha yaa goorma ku dooratay beesha afayeenimada dhalinyarta beelaha gadabuursan afayeen u ahay haddana aan ku hadlayaa qaado xagee kugu doorteen kullay madasheedii goobteeda la igu doortay ma meel qaaban bay hayd haddii Bunu Axmednimo lagu qabanayna Burco iyo Berbera iyo waxa la geyn maxay ahaydaan sheekh iyo mudooyinka ugu dambeysay waxa dhowr jeer warbaahinta ka soo muuqatay adigoo oo madaxweynaha ama xukuumadda la mooday inaad u xaglinayso maantana de waabad eedaynaysaa madaxweynaha maxaa soo kordhay maxay soo kala dhex galay xukuumadda albaabada ka furi weyday kulan haboon daawadayaal shirwac ayoo ka mid ah dhalinyaradii dhawaan tigtay magaalada Silcaya garabkayga bidix ku suganaya shirwac soo dhawow suxufiyiine waan dhawahay maxay ahaydaan runtii kullay waxay soo kiciyay ayuun baan qabaa laba qodob ma kullay dul istaagi arrinta Silaac iyo banka wajaale arrimaha maxay ahaydaan ka soo cusboonaaday way adoo waxaad ahayd dhalinyartii dhawaan tigtay magaalada Silaac maxaa soo kordhay arrimaha Silaac markaa umada uga haysaa aad uga waramaysaa horta umada adalyaanka waa salaamaya ee ku hadlaya afkooga dalilaa dibad runtii waxaan maxay ahaydaan umada adalyaanka aan u sheegayaa ama aan u cadeynayaa runtii waxa maxay ahaydaan aynu ogeyn in xeerka halka la wadwado raggii waday inaynu ballantii ay qabsadeen haynu maxay ahaydaan kaga adkaanay oo suura gali weyday runtii waxa muuqato ififaalooyin Bunu Axmedaysan oo soo baxayo saacadii la soo dhaafay waxaanu leenahay fikirada soo baxayo ee Bunu Axmedaysan maalintan aanan ahayn oo ka naqnayn tiraahan iyo dhaqaalahan iyo maxay ahaydaan tayahaanba ayaanu la soo dagaalanay Bunu Axmedyadan oo nuujilib dhignay waxa eeba mahadiya in Bunu Axmednimadii ay shaqaynayso annaga oo ka tayo fiican maalintii annaga oo ka dhaqaale fiican maalintii annaga oo ka maxay ahaydaan tayo fiican maalintii waxaan leeyahay adalyaanka aagaga inagu furan waa aragtaan xeerkii waxa la leeyahay bisha 12 ayaa loo balansan yahay sidii November 10keega ballantu ay u suura gali weyday ayayna u suura galay taa waa inaa ogaataan adalyaanka waxaan leeyahay dalilaa dibad waxaanu ka xignaa dil waxayna suura gali in halkaa xeer lagu qabtaa oo loo sacabtuma qofka u dambeeyay gadabuursi maalinta u dhinto haddii Bunu Axmednimo lagu qabanayna Burco iyo Berbera iyo waxa la geyn maxay ahaydaan sheekh taa ayaan ka leeyahay umada adalyaanka waxaan leeyahay kullay talaabo walbo qaadaan talaabadeedii ayaynu qaadaynaa inaanu ka seexanay inaanu niyad jabnay inaanu ka hadhnay taa maxay ahaydaan marna suura gali mayso hawshii aanu halkaa u tagnay shalay sida halkii aanu ka taagnayn iyo dil ayaanu ka xignaa maanta runtii taa ayaan ka leeyahay arrimaha arrinta intaanad ka bixin Binu Axmedaysantaadu maxaad ka wadaa runtii waxa la yidhi maxay ahaydaan si wax u socdaan nin ragi waa garanayaa doqonna loo sheegay maayo taa ayaan kaga baxayaa waana la fahmayaa maxay ahaydaan su'aasha aad weydiisay waxa aan uga socdo taa inta markaa kaga imaado banka wajaale arrimaha ka soo cusboonaaday waxaan leeyahay waa reer baynu nahay gadabuursaynu nahay qabiil lama kala nihin maanta mid baynu nahay uliya deer baynu nahay
xildhibaanada beesha reer nuur waa matalaadii maxay ahayd aanay reerkaa wey cidda la magacaabi reerka ma matasho cid ay doorateen baa maxay ahayd aanay matalo xildhibaanada labada gole ee beesha reer nuur hadalkii ka soo baxay waanu ku garab taagannahay laakiin waxa ayaan daraa madaxweynihii qaranku in baaqii iyo hadalkii adkaa ee beeshaa ka soo baxay ha u joojini waayo taasna waa ayaan daro waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka madaxweyne xaaladahani markay jiraan go'aan qaadasha loo baahan yahay madaxweyne xaaladahani markay jiraan tanaasul baa loo baahan yahay laakiin anay igu goodaa iyo taydaa soconayso qaar badan oo dalkan soo maamulay waa ku jabeen ee mudane madaxweyne weli ummaddani iyo reerkani kaama rajo dhigin ee adiguna go'aan qaadashadu waa wax weyne go'aan qaado arrimaha banka ka socdo iyo arrimaha maxay ahayd aan siilax ka socdo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga haddii 500,000 ee gobolka awdal yaala laga doorbido 9 oday oo gando oo Itoobiya ka yimiday waxaan la mahadin ayaa ka dhalanayaan leeyahay wabillahi tawfiiq xalay dhowr dhalinyaro oo aad kamid ahaydeen intiini aad siilax ku tagteen qoraalo kala duwan oo aad dhaliil ku saaraysaan madax dhaqameedka gobolka awdal ayaad soo wada qorteen maxaa waxay idin shanqaray maxay tahay markaa runtii dhalinyarada adaliyaanku qoraalka ay baahiyeen ujeeduu lahaa goorteedaan laga hadlayaa insha Allah bidmillaahi kariim marka hadda waxaad uga jeedeen ummadda u sheegi kartaa ma jirto miya waxaan kuugu celiya hadalkaayne qoraalkaasi meel buu ku socday ujeeduna lahaa wax la iska soo qorayna ma ahayn ee wax lagu wada socduuha goorteedana waa laga jawaabay filcilin badan baa ka timi shirwaco waxa la yidhi odayadan ay eedeynayaan xillimay la tashadeen oo ay ku noqdeen idinku ma eed aan meel haysan bad odayaasha dhaqankaad u jeedinaysaan waxa la yidhi maxay ahayd aanay mala waxaan ku leeyahay kuma galayaane runtii waxa la yidhi haad habeenkacay wuxuu kiciyuu qabaa qoraalkaa iyo dareekaa waxa keenay qabtay goorteedana waa laga jawaabayaa ku biicad baan ku leeyahay waxa muuqata iminka inaad su-aashaas si yaro aad uga warwareegaysanayso bal waxaad ummadda u sheegtaa ood fahansiisaa dhalinyaro odayadoodii dhaqanka baalmarsan waa halkay isku halaynayaan ma wasiiradii maalmihii dhaweyta ay markaa qadada iyo baastada ay kula kulmayeenba cumarow maxay ahayd aanay runtii maanaan arag dhalinyaro odayaashooda baalmarsan meel hay ku dhacdayna ma jirto taada qiraalkayga lagaa rabaa sidan muuqata maxaa haddaad isku aragti tihiin maxaa keenaya markaa inaad aad iskhilaaftaan oo aad odayada dushooda aad dhaliil saartaan hadal waxaa ku daysaa qoraalkaasi dareen ayuu maxay ahayd aanay ku wajahnaa goorteedaan laga jawaabayaa waana saacadaha soo socda insha Allah arrintii madaxweynaha haddaan su-aal kaa weydiiyo muddooyinkii u dambeysay waxaa dhowr jeer warbaahinta ka soo muuqatay adiga oo madaxweynaha ama xukuumadda aad la mooday inaad u xaglinayso maantana dee waabaad eedaynaysaa madaxweyniye maxaa soo kordhay maxaa idin soo kala dhex galay ma xukuumadda albaabada kaa furi weyday runtii taa ma taagno qadiyad reereed baan ka hadlayaa adna maxay ahayd aanay xukuumad baad ka hadlaysaa reernimadu aniga diin bay ii tahay runtii waana faral waana aayad reernimadaydanan ku adag waxaan markaa ku leeyahay albaab la xidho iyo albaab la furo waxa ka weyn qadiyadaanu kaala hadlaynay taa qaado gudbi baanu ku leenahay shirwac waadi dhawaa waxa soo baxday inaad sheegatay afayeen aad tidhi beel baan afayeen u ahay waa tii aad beesha yaa goormay ku dooratay beesha afayeenimada dhalinyarta beelaha gadabuursaan afayeen u ahay haddana aan ku hadlayaa ay qaado xagee kugu doorteen kolley madasheedii goobteeda laygu doortay ma meel niqaaban bay ahayd intii maxay ahayd aanay joogtay na waa joogtay inta kalena intii joogtaa maxay ahayd aanay u gudbin taana kuwaasaa kaaga way dadka deegaankayna daawan doontaa ma waxaad u sheegaysaa markaa in lagu doorto sidaad ku cimaamadan tahay miya dee adiga horta cimaamadkaagama baahni ciddaan dhalinyarta maxay ahayd aanay afkooda aan ku hadleen dareenkooda ku gudbinayo ayaad su-aashaa weydiin waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa shirwac oo ka mid ahaa dhalinyaradii dhowaan tagtay magaalada saylac ee xarunta gobolka Salal Cumar Hayne magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal